magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa la soo gaarsiiyay dadkii ku soo dhaawacmay dagaalkii degmada Buuhoodle oo tiro ahaan gaarsiisnaa 20 ruux iyo qof wadada ku soo meeday wafdi balaaran oo uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac Tigey oo ka koobnaa xubnaha maamulka odayaasha dhaqanka waxgaradka qaybihiisa kala duwan aqoon-yahanka iyo dhakhaatiirta caafimaadka ayaa gawaarida dhaawacyadan siday uga hortagay masaafo qiyaastii 25 kiiloomitir u jirta magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaana dhaawacyadii oo ay sideen gawaari waaweyn lagu soo wareejiyay gawaaridii yaryarka ahaa ee wafdiga oo aad u farabadnaa intaas kadib dhaawacyada waxaa loo soo gudbiyay isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo halkaas oo ay ku diyaarsanaayeen dhakhaatiir farabadan iyo tiimam caafimaad si ay dhaawacyada u siiyaan gargaaro caafimaad oo degdeg ah dhaawacyadana waxaa ka mid ah 2 carruur ah oo aad u daayar iyo hooyadood oo uu ku habsaday mid ka mid ah madaafiicdii dagaalka ee Buuhoodle waxaana carruurtaasi si gaar ah loogu fuliyay adeegyo caafimaad oo dhameystiran dhaawacyada intooda kale ayaa waxay isugu jireen kuwa aad u liita iyo kuwa dhaawacoodu sahlan yahay waxayna dhakhaatiirtu weli la tacaalaysaa caafimaadkooda maadaama qaarkood qaliimo lagu sameynayo howlgalkan caafimaad uu socday qaybta carruurta oo ay yaaleen 2 carruurta ah ee dhaawacyada ka tirsanayd waxaa saxaafadda kula hadlay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Mudug odayaasha aqoon-yahanka iyo waalidka carruurtan oo si gaar ah u tilmaamay xanuunka ay dareemayaan iyo sida ay u saameysay dhacdada dagaal ee deegaanka Buuhoodle gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac Tigey ayaa cambaareeyay weerarka ciidamada Soomaaliland iyo khasaaraha shacabka soo gaaray oo uu ku tilmaamay xasuuq cad taariikhdu maalinba meel bay maraysaa maanta sida aragtaan waa dhalaan doox indhawey saxaafadda beesha isaaq waqooyi galbeed Soomaaliya waxa laga xayeysiinayay oo lagu baraarujinayay dadka xasuuqii lagu sameeyay beeshaas ee ay ku sameysay dawladii gacankii 21 Oktoobar ee hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre oo loo eelayay inay ahay daarood in lagu sameeyay xasuuqaas beesha isaaq si ay u argoosaan maanta Buuhoodle waxay ku xasuuqeen dhalaankaas aad arkaysaan waxa ay isweydiin mudan dhalaankaanu ma dawladii Maxamed Siyaad Barre dhalaankaanu ma Puntland ba dhalaankaanu ma Khaatuma maya waa Birmagaydo waa kuwa muslim iyo gaalaba ay isku waafaqsan in la dili karin runtii waxaan oran karnaa ummadda Soomaaliyeed markay burbudhay reer walba gurigiisa ayuu ku tashaday reer walba isaga ayaa ismaamulay dhalaankaanu la laayo dhiigooda lagu ma noqon karo dawlad aqoonsina lagu ma heli karo darbad waxaanu dirayaa damir laawaha dhulbahante ee Hargeysa fadhiya ee saldanada iyo xukunka ku doonaya kuwa dhiigooda ama mushaarka iyo laaluushka u qaadanaya dardaaranna waxaan u jeedinayaa beesha isaaq meel ay joogtaba kuwa dhiigooda iyo dhacaankooda dawladnimo ku heli meysaan aqoonsina ku heli meysaan xaqiiqaduna waxay tahay haddii aan la joojin gumaadka iyo xasuuqa sool iyo sanaag iyo cayn laga wado waxa laga dhaxlayaa waa cawaaqib xumo Soomaalidu inay wada noolaato inuu qolo walba dhulkeeda ay dhisato inta dawlad Soomaaliyeed ka soo noqonayso ayaa loo baahan yahay waxa xaqiiqo ah waxa warbaahinta laga xayeysiinayo iyo diyaaradaha Hargeysa taalooyinka la saaray ee la leeyahay qabiil baa nagu soo duulay iyo qabiil baa nagu garaacay kuwaana looga argoosanayo mid loo dulqaadan kara ma jariimo Buuhoodle waxa ka dhacday dambiyada dagaalka la isku weydiin doono laguna horkeeni doono cidii kuwa madaafiicda la dhacday kuwaanu qabiilna maaha cidna wax ma aysan dhimin cidna dambi kama aysan gelin waxaan u sheegaynaa waxgaradka iyo isimada gaar ahaan aqoon-yahanka culimada diinka reer waqooyi ama beesha isaaq inay xasuuqa iyo gumaadka ay hogaamiyayaashoodu wadaan ay ka joojiyaan dadka birmageydada ah ee aan waxba geysan gabagabadii waxaan ku soo gunaanadayaa qof waliba gacan waliba waxa ay goysay ayay leedahay maanta kuwa xasuuqaya ee la dawladnimo ku raadinaynaa ama aqoonsi baan ku raadinaynaa waxaad isweydiin doontaa taariikhda isweydiin doonta waxaana la horkeeni doonaa oo lagu xisaabtami doonaa maxkamadaha dambiyada dagaalka sidoo kale waxa isna hadal kooban jeediyay mid ka mid ah waalidiinta carruurtan oo ka sheekeeyay sida ay wax u dhaceen badaafiic baa ku dhacday waxay kaga dhacday meesha la yiraahdo Shagalle oo Buuhoodle u jira 5 kiiloomitir badaafiicdaas oo ay ciidamada silaayo ay ka warqaata ay ku ridayeen dad shacab oo farabadan hooyadood waa dhaawac way la socotaa walaalkood kale waa la socdaa isaguna oo dhaawac waa laga yibi marka maatadaas sidaas ah ayday muuqata nin walba indhihiisa ku arkayo waxaa la hayay ciidamada silaayo sidaas waxa weeye ummadda islaamka ah dadka Soomaaliyeed
لما أنتوا وحنا شجعنا بيش عالم كه إن يذكر تخلص السياسي أي أركان ونموقته وعم بينهن waxaa iyaguna goobtan ka hadlay qaar kamid ah aqoon-yahanka odayaasha iyo haweenka gobolka oo si kulul u cambaariyay weerarka Somaliland ee deegaanka Buuhoodle anagu haddaan gaarkay joogno iyo magaalada Buuhoodle oo labadaba dhaawac iyo dhimasho taalo horena waa u sheegnay wax ma kala bedelna waa isku mid weeye waa shacab isku mid shacabka noocaas anagu qabiil ma nabin cidii horumar doonaysa ma nabin cidii dawladnimo doonaysa ma nabin cidii dhaqaale iyo waxeelaysa ma nabin laakiin waxaan necebnahay oo diidanahay oo ka hortagayna waan caalamka u sheegaynaa diiga ladaasi inay xaaraan tahay carruur yar yara oo waxba galabsan oo gurigooda hor fadhiya oo waxarahoodii carruur la joogta in la laayo xabad lagu furo waa xaaraan adduunkoo dhan waa ka xaaraan arrintani waxay ku soo aadaysaa xilli 16 bishan sidan oo kale magaalada Gaalkacyo loo soo gaarsiiyay dad ku soo dhaawacmay dagaalo magaalada Buuhoodle ku dhaxmaray ciidamada Somaliland iyo dadka deegaanka Cumar Axmed